الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وسوكو بين نبى لها إسكير الصبر إن شاء الله أنت أجر بين الصعدة في بيت من بيوت الله يبقى كجرة هكذا يقول الصلاة أجرها نبى سوكو بين فضل ذي الحجة 10 ذي الحجة طبعا كبري بش ذي الحجة فضل هذا أنو soo sheegnay aayaadkii iyo axaadiistii ka hadlaysay mar haddaan la ogaanay fadligeeda iyo qiimaha ay leedahay cinda almuslimiin ilaa heer ay muslimiintu ay tartansiiyaan 10 beri iyo 10 ramadaan aakhirkiisa kee fadli badan maxaa in la gudbin inaga si kooban marka ugu horeysa in aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala bal marka ugu horeysa aanu u diyaar garowno ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan u toobad keenno si aan ugu diyaar garowno inta aan la gaarinba waa in aan ibtidaa'an min alleyla haadihi aan niyeysanaa in aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenno toobadkeenku macnaheedu ma aha inaad dembi ka toobad keento toobadkeenku بمعناه الشامل النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله بوها ذاتك بشر كقو فضل بدن يعني إلهي وحو أبو ري قفك أو فضل بدن بوها النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة ما أنتي تضبات تشرب إلهي سبحانه وتعالى دم بالأف ويدي سنشري ولا توبت كين تشري مركا إلهي سبحانه وتعالى توبت كينه هدي أي نقطة طاعooyinkii iyo waajibaadkiina la amray oo sidii la rabay aanan u samaynin taqsiir baan ugu jira bashar baan aanahay sidii ilaahay uu wax inoo amray miyaan u samaynaa wax la arko taasi waa toobadkeenka ay ka mid tahay haddii dunuub iyo macaasi ilana bashar baan u nahay 24 saac waa dambaabaynaa ay naga dhacaan oo ficilaba naga dhacahayaane ilana bashar baan u nahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqonno oo aanu niideysano inaanu mardaba ku noqoninin wixii dambiga ah gacanta aan kula jirayna aanu faraha ka qaadno markii toobadkeenkaasi aanu niyeysano oo aanu la imaano ka bacdi talaabada koobaad ee 10 beri aanu samaynayno waxa ugu horeysa soomba ugu horeeya in aanu isku dayno bal in aanu soonno 10 beri ama 9 beri لأن maalinta tobnaad waa maalin ciid ah ma banaan soonkeedu culimadu waa isku khilaafeen طبعا أجرها كسر أو صوم كي صلاة يحرم شامل هي النبي عليه الصلاة والسلام ما صام ما صومين عمدوا أربع حديث بسود الشدين لكن حقيقة شك كتيرين صوم كا لصومه فضل الإرادة إن أوليه هي استحباب أوليه هي سيد الإمام النووي رحمة الله عليه وكعب برأيه يستحب فيها استحبابا شديدا أوليه هي marka hadduu nabigu soomayna hadda waa khayr haddii uusan soominna culimadu qaarba waxay ku cilaynayaan hataa 10 beri nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa laga yaabaa inuu u soomin in uu ka cabsado in ummadiisa lagu fard yeelo marka ummadiisa asagu u turhaya ala yataxaal inaan horta isku dayno 10 beri soonno haddii ay hataa nagu adkaato in aanu bal soonno maalinta carafa maalinta sagaalaad oo ajir gooni ah ku soo arorsan xadiiskii sheegnay oo sanad horeete iyo sanad soo socdaba lagu dhaafo in aanu maalinta ayadana aanu soonno
soonka ka bacdi in aanu bal ku dadaalo nabigu sheekhu maanta wuxuu ka hadlayay ahmiyatu salaada tobankaa beri bal inaanu ayadana aanu ku dadaalo in aanu waajibaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu amray ee salaada ugu horeyso siduu sheekhu inoo sheegay waa aqiimoo ah ee salaada ooga baa laynagu yidhi salaada tukada meel lagu sheegay lama hayo qur-aanka wa aqiimu iqaama laga cabiraya iqaamadu waxaa ka horeeya in arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo khushuucdeeda iyo wixii sidii la rabay in loo sameeyo bal aanu isku dayn waa muusim waa xilli fursad ah tobankaa beri in aanu bal mashaaqisheena adduunyada intaan meel iska dhigno aanu waajibaadkii sidii la rabay aan u samayno oo ay salaada ugu horeyso oo aanu mar alla markaanu adinka maqallo aan masjidka aanu tagno safka horeeta aan ku tukanno takbiiratulixraamna aynan dhaafin haddii adoo masaajidka jooga lagugu adimin haddaa ka wasi fiican waajibaadkaa salaada markaanu aan samaynana sunantii iyo rawaatibtii iyo qiyaamuleylkii iyo khayrkii faraha badnaa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii axaba ilaya mima iftaradtuhu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa addoonkaygu waxyaalaha uu igu soo dhowaado waxa aan ugu jeclahay waa faraa'ida ninku marka haddii uu sunanta iyo nawaafishana uu ku daro nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska qusiga ahaa ee uu ilaahay ka warinayay wuxuu yidhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah addoonkayga ka zuuli mahayo inuu nawaafisha iyo sunanta igu soo dhowaanayo ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtu ya kuntu samcahu aladii yasmac bih haddii aan jeclaadana haddii maqalkiisi iyo araggiisi iyo gacantiisi iyo xooggiisi iyo waxoo dhan buu ilaahi subxaanahu wa tacaala kuu furhayaa oo kuu sahlhayaa marka in aanu bal sunantaasi ayadana xadiiskaasi lagu sheegay in aanu ka faa'iidaysano siday ahaydna aanu u samayno midda saddexaad takbiiraat nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis ka mid wuxuu yidhi maalmahaasi ayaa ugu fadli badan maalmaha tobanka ah khayru ayaami dunya adduunyada maalmaha kuwa ugu khayrka badan weeyaan marka wuxuu yidhi faakfiruu fiihinna altakbiira waltahliila waltahmiid maalmaha saa u fadli badan badiya التكبير الله أكبر بديا والتحميد الحمد لله بديا والتهليل لا إله إلا الله الله أكبر بديا أذكارت بديا توكا بري مركا وكان أردتنا وحالة الشرعية ومشروعة أذكار ذكري بعد الشرعية تكبير تاسلام قيبود بيوقف سنتها هي قيب مطلقة أو هذا السوق مرة يقول الله أكبر الله أكبر لا بقوا هنا سمعتنا يقيب مقيد oo culimada inoo sheegeen oo maalinta sagaalaad fajrkeeda bilaabanaysa oo ku qaydan bacda salawaat salaadaha gadaashooda ilaa iyo maalin 13aad marka takbiirta iyo adkaarta iyo istighfaartana inaanu aad iyo aad aan u badino tobanka bari inaan ducada aad u badino ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u barino maadaama acmaasha dhanba waa acmaal laynaga rabo tobanka bari iyo keyrkoodba fadliga badan tobankan beri iyo keyrkoodba laakiin tobankan beri bay ka sii fadli badan yihiin ducadu aad ilaahay baryayso waa shay fadli badan laakiin tobankan beri kuma jirto waa ka sii fadli badan tahay marka sidaas aanu yeelo aanu aad iyo aad ilaahay u baran khaasatan maalinta carafa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku magacaabay maalintaas in ay tahay maalin ilaahay oo addoommadiisa qoortooda uu ka xoreeyo naarta duco la ducaystana nabigu calayhi salatu wuxuu noo sheegay inay ugu fadli badan tahay maalinta carafa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah
wax allaale waxaan sheego ama aan ku ducaysto aniga iyo ambiyadii igu horeysay waxaa ugu fadli badan laa ilaha illa allah wahdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir ducadaasi leanno ducadu culamada laba ay u kala qaadaan ducaau lmas'ala iyo ducaau lcibaada markaad ilaahay baryayso laba qaybooda weeyaan inaad ilaahay wax shay a warsanayso an tas'al illaah bishay alfulaani ilaahayo waxaa isi ilaahayo naarta iga xor ilaahayo cadaabka iga ilaali ilaahayo jannada igeli ilaahayo waxaa isi ilaahayo caafimaad si ducaau lmas'ala baa la yidhaahdaa ducaau lcibaada waxaa weeyaan cibaadadan aan gudanayno daacooyinkan aan gudanayno markaanu salaada tukanayno een soomayno een salaadayno een zakada bixinayno maxaan u samaynaynaa maxaad u soomaysaa maxaad u ducanaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa raali noqdo soo ma ah hadda waa ducaau lcibaada ayada lafteeda baryo weeye ilaahay baad baryaysaa oo inuu kaa raali noqdo aad baryaysaa waxaad u tukanaysaa ilaahay inuu janno ku geliyo ayada lafteedii waxay ku soo noqotay ilaahay subxaana wa tacaala inaad barido marka ama lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal baa la kala yidhahdaa tuna afkaaga iyo carabkaad ka sheegaysaa oo ilaahay oo saa isii baad leedahay midla xaaladaada waxay tilmaamaysaa xaalatu baryo ah markaad tadarucayso ee ilaahay u tagantahay ee khushuucayso ee salaada waa ilaahay baad baryaysaa ilaahu ii dembi dhaaf wey ilaahu jannada gey wey ilaahu naarta iga xore wey marka tobankan beri ayadana sidoo kalete inaanu aada iyo aad aan ducada u badino qur-aankana aan aada iyo aad u akrino qur-aanku sidiisa waa fadli badan yahay fii hadihi alayaam wa fii gayriha laakiin tobankan beri fadligiisu aada iyo aad buu weyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay halkii xaraf oo qur-aanka ah ya inuu ruuxu ninkii akhriya inuu xasano helayo waalxasanatu bicashar amhaaliha halkii xasanana 10 jeer baa lagu labanlaabayaa لا أقول ألف لام ميم حرف ألف لام ميم حرف مرعي ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سدح ألف لام ميم وسدح حرف هل كي حرف قاتل هذا طبعا حسنة ويا حسنة طبعا شر بالله صدام بدل الساعة بسم الله الرحمن الرحيم وكل هذا ترى وسجالة طبعا حرف بسم الله الرحمن الرحيم وسجالة طبعا حرف طبعا شر كله في بركة بسم الله الرحمن الرحيم وكل وقل يا سجالة حسنة ليس marka fadli intee la baqaanaysaa hadda quraanka tobanka bari dhamayso meeqa milyan oo xasano baad helaysaa hadda tobankan bari maan la arko sida jusaad akhriso soo wax aad weyn ma ah hadda dadka muslimiinta aad ilaahu allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat maanta aad ku celceliso ilaahay oo muslimiinta iyo mu'miniinta ilaah u dambi dhaaf oo qof la arko muslim aad ducayso qof la arko oo muslim ah ama mu'min oo dunyada joogo u ducayso أجر بعد كل هذا ما قم مليون المسلمين ما قم مليون أجر بعد هذا مركا ساعة أنا أفير إنه الدين إنه نحرص إياه سبحانه وتعالى وإن السيء فضل واسعة فرها بدن أنا كفى إذا سن سجود سجار أهاننا طبعا كان بريئا أدي أدي كفى إذا سن سلف كي رضوان الله عليهم حلقة سورية ركمت طبعا كان بريئا ولا هل تجرين بقى سعيد بن جبير وكالتيه لما هي الجرين وحال يسوي سعيد بن جبير ولن شري إذا دخل العشر فأطفئ السراج طبعا كان برهدي للقلم فلا تطفئ السراج عفوا وارتمن بريغا هدي للقلم ونرلك فين صح الدمينين هبينك يوردن قرآن أخرية عباديستا فردوح وكفلن وارتمن بريغ وفضل يقولوا أنا كيرين طبعا كي 10 الأواخر marka ruuxa daa'iman dhakiga ah waa qofka furasta iyo muwaasibta ka faa'iideysta طبعا insaanku mar la arko waxa loo baahan yahay inuu faa'iidadaasi iyo cibaadadiisa inuu ilaahay ku dhex jiro cibaadada ilaahay inuu ku dhex jiro oo ajirkiisa mar la arko oo badsado laakiin bashar baa leeyahay taqsiir baa iska imaanaya gabadh fal baa iska imaanaya shaydaan baa jira hawa jirta naf baa jirta balaayo bas baa jira laakiin qofka dhakiga ah markuu furastan oo kala arko ayuu naftiisa meel ku xirayaa شاطانا مالكو حرايا نفتنا مالكو حرايا قنتي أنا سفي عنو حنشيران هيا ونكفى فائدة سنة هيا وقت هذا نكلت مركا آدي هذا نكفى فائدة سنة من كبري وفرصة آدي هذا قال وآه خاصة تذكر اللي يرضى ماشى نبضا وارك
yar yar ah oo awood u leh inahaasoo dhan dee odayaaliin waxaa laga yaabaa ama mashaaqishooda inay fara badan tahay ama caafimaadkooda, laakiin ninka dhallinyarada ah inta aan sheegnay iyo ka badan buu awoodi karaa intuusan gaboobin ee uusan mataqaanaa cudurro iyo rafaad iyo dhib iyo mashaaqil aynu imaanin intaad yartaa ka faa'iidayso, aad iyo aad uga faa'iidayso. inahaasaan kusoo koobahayaa kelimadii sheekh ayaa wacdi inoo dhameeyey, laakiin min baabi maadaama ayaantaba ay soo socoto inaanu isxasuusino aniga iyo nafteeda iyo idinkaba aan xasuusiyo unbuu hadafku ahaa. marka jazaakum allahu khayran, intaasaan kusoo gabagabaynaynaa.